milatariga Soomaaliya ayaa goor dhow la wareegay deegaanka Galibaax ee hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Ciidamada la wareegay deegaanka ayaa la sheegay inay yihiin kumaandooska danab iyo gorgor kuwaas oo dhowr dhinac ka galay deegaanka. Al-shabaab ayaa isaga baxay deegaanka Galibaax waxaana ciidamadu ay si rasmi ah gacantooda u soo gashay magaaladii ugu horeysay ee Galgaduud ah. ciidamada la wareegay deegaanka ayaa ka gudbay gobolka Shabeellada Dhexe waxaana qaarkood la sheegay inay ka baxeen Runurgood iyo Ceel Cali Axmed. Galibaax ayaa 8 kiiloomitir u jirta Galcad oo kamid ah magaalooyinka ugu muhiimsan gobolka Galgaduud waxaana la sheegay inay ku wajahan yihiin deegaano kale. si xawliga ayuu u socdaa gulufku wuxuuna ku sii fidayaa deegaano kale oo hor leh waxaana hadda la isla galay gobolka iyadoo u muuqato in xaajadu ay tahay mid daaftay gobolka Shabeellada Dhexe. ciidamada huwanta ah ayaa u muuqda kuwa gaaray deegaano hore oo horey u joogeen dagaalamayaasha Al-shabaab. dhinaca kale ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay goob ay ku sugnaayeen Al-shabaab oo u dhow Al-Kawsar. ciidamada dawladda ayaa u dhaqaaqay goobtan waxaana la sheegay inay la beegsadeen weerar culus iyagoo la sheegay inay ka war heleen damaca ah in Al-shabaab ay weeraraan magaaladan. goobtii ay ku sugnaayeen Al-shabaab ayaa waxaa la wareegay ciidamada dawladda waxaana la sheegay in deegaanka laga saaray.